السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkani waa channelka Somali Islamic TV kusoo dhawaada meel kasta joogtaan iyo qaybtii lixaad oo kamid ah xuquuqul waalidiin waalidka lagu noqdo caaq oo lagu xumaado. intaanan mawduuca gelin aan ku xasuusiyo inaadan ilaawin inaad channelka kusoo biirto subscribe aad saarto gambaleelkana aad furato si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya daawada barnaamijyada mawaadiicda aan soo gudbino anagana dhiirigelinayna ugu noqoto kusoo dhawaada mawduuc muhiim ah. maanta waxaan idin soo gudbinayaa hooyo ay ciyaalkeedii kaga tageen wada cidla. maamadaad aragtaan waa islaanta weyn ee duqda ah. ciyaalkeedii ayaa intay gaari ku soo qaadeen oo soo kaxeeyeen bay cidlada kaga tageen. way ka dhaqaaqeen iyadoo wadada iska marayso oo xitaa biyana aan haysano wax cuntaan haysan iska daa waxay cuntay biyana aan wadan ba waxa uu yeedhay nin wadada marayo gaari wata wuu wareystay. waxay u sheegaysaa carabi ku hadlayeen lahjada waxay u sheegaysaa in ay caruurteeda halkan keeneen kagana tageen imika meel ay aaday meel u dhaqaaqdaysan garanaynin cid ay raacdanaysan garanayn. waxay ka dalbanaysaa inuu raaco inay raacday ka dalbanaysaa laakiin wuu diidayaa. bes waad aragtaan wuxuu siinayaa kaliya caagada rashablaan oo biyo buu siinayaa wuuna ka dhaqaaqay iyaduna way iska dhaqaaqaysaa laamiga iskaga dhaqaaqaysaa weeye. idan waa aragtaas maamada inta leeg dadkii ay dhashay halka kaga tagay talo inkaarinta leeg bay kasbanayaan subxaanallah. intaasaan doonay maanta inaan idinla wadaago idiin soo gudbiyo ina waalidkan inaynu qaabkaas kale la dhaqanno aan iska ilaalino insha Allah. maanta laga bilaabo waxaan idiin soo gudbinayaa dad baariyaal ah oo wanaagsanaa waalidkood ihsaan iyo wanaag u sameyn jiray oo la dhaqmi jiray qaabka loo dhaqmi jireen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.